waxaatan iyo habeennimadii xalay ahayd gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab degmada Dadaab iyo waliba xarunta gobolkan waqooyi bari ee Gaarisa ka socday munaasabada ballaaran oo dadku ay ku soo dhaweynayeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba doorashada xorta ee ka dhacday Soomaaliya dadka ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay isugu soo baxeen goobaha markaasi dadka isugu imaadeen ee gudaha xerooyinkan iyadoo sidoo kale gudaha xerooyinkan lagu arkay gawaari lagu xiray calanka Soomaaliya isla markaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin Soomaaliya tooso iyo waliba erayo kale oo wadani ah qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxay uga warameen dareenkooda warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وعبد الله موسى ديري oo jooga qaxootiga xaga dheer aad iyo aad ayaan halkan waxaan uga hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama oran karo waxaan waa farxad waa inaan dhimanaan ku siganay xalay wixii dhacay wax aniga shakhsigaygana maaha waa ummadda Soomaaliyeed marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed taageerada hadda aan u fidinay ninka la yiraahdo Farmaajo inay naga dhab ay ahaato oo afarta sano aan sidan ku wadno magacaygu waa Khadiija Cusmaan Cali ilaa ay xalay Farmaajo u taageeraynaa waxaan ku faraxsanahay madaxweynenimada Farmaajo u helay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan maalin ku qiyaasi karnaa xagar dheer hadaan ilaa ay cali dabaldeg Farmaajo ay doorashadii dhaceysay waxaan maleeyaa dhammaan waan daawanay waxayna ku dhacday si cadaalad ah Farmaajo wuxuu ahaa ninkii kaliya aan sugeynay wuxuu ahaa nin na tusay 6 bilood oo wadanka ka ahaa ra'iisul wasaare يعني اسكو دبرتك عيدنك يعني سدا ودقالوده kor ugu qaaday oo amaaneen xalay walaa farxad iyo reen said ayaan ka dareennay maanta wixii dhacay xaga dheer dimuqraati waa laga ahaa sababtoo oo dhan saddex xero dimuqraati waa laga ahaa waa loo wada joogay annaga aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna waxaan ku codsanaynaa in uu sidoo xalay ku hadlay iyo balanta xalay oo naga qaaday inuu noogu dhaqmo oo cadaalad noogu dhaqmo halkan uga hambalyeynaa madaxweynaha cusub Soomaaliya loo doortay waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha xilka la wareegay cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ugu faraxsanahay danta dalka iyo dadka safiirkuula ku nool qaxootiyalka xarooyinka Dadaab xaga dheer waxaan ku faraxsanahay madaxweynaha Farmaajo nin wadani waana taageersanahay waana ku faraxsanahay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana soo dhaweynaynaa hambalyahay Soomaalida ku dhaqan xooyinka qaxootiga ee Dadaab ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ka dhulsugayeen doorashada Soomaaliya iyadoo habeennimadii xalay ahayd markii lagu dhawaaqay xooyinka qaxootiga ee Dadaab ay ka bilowdeen mashruucyo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba sidii wanaagsaneed ay u dhacday doorashada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliya xiriyaha qaxootiga ee Dadaab